بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waa Dr. Saciid Sheekh Maxamed ku takhasusay qaliimada caruurta waxaan ka howlgalaa isbitaalka jaamacadda Jazeera sidoo kale isbitaal Banaadir waxa kale oo aan qaliimo ka fuliyaa qaar kamid ah gobolada dalka sida Garowe mar haddii aan dhahay qaliimada caruurta waxaa laga yaabaa inaad in badan isweydiineysaan cudurrada u baahan qaliinka in lagu daweeyo ama lagu xalliyo caruurta ku dhaca inay maskaxdiina maxaa ku isweydiinaysiin ayaa laga yaabaa cudurrada la xiriiro caruurta u baahan in qaliinka lagu daweeyo waa laba nooc kuwa ay caruurta ku dhashaan oo ah kuwa ugu badan ee qaliimada aan u sameeyo iyo kuwa canuga markuu dhasho kadib kusoo dhici karo tusaalayaal haddii aan qaar ka mid idinka siiyo caruurta qaliimada u sameeyo caruurta la xiriiro waxyaabaha ilmaha ku dhashaan waxaa ka mid ah caruurta ku dhalata tusaale ahaan iyagoo uu xiran yahay daloolka saxarada caruurta ku dhasho iyagoo caloosha ay furan tahay banaanka taalo kaadeysa iyadoo banaanka taalo caruurta ku dhasho iyadoo xaniintooda kor jirto caruurta ku dhasho iyagoo hoos ka kaadinayo oo loo yaqaan habasbedias caruurta ku dhasho caloosha ama mindhiraha qayb kamid ah oo xiran oo isla markii dhashaan canuga matag cagaaran uu ku bilaabanayo iyo sidoo kale burooyinka qaar caruurta ku dhashaan iyo sidoo kale eernooyinka qaar ee caruurta ku dhashaan intaba waa sameeyaa qaliimadooda waana jiraan waa cudurro qaliimo loo sameeyo waxaa kaleeto jirto cudurro la xiriiro canuga markuu dhasho kadib isagoo caafimaad qabo oo soo koro cudurro isla markaa ku yimaado ay kamid tahay qabsinka ay kamid tahay burooyin ay kamid tahay sidoo kaleetood dhaawacyada ilmaha soo gaaro ama caloosha ka soo gaaro ama jirkooda qaybo kamid ah soo gaaro eernadoo kaleetood sidoo kaleetood caruurta markay xoogaa soo roonaadaan ku dhacdo intaasoo dhan waa qaliimo oo loo yaqaan acquired ama canuga markuu weynaado ama soo koro gadaal uga dhaco oo aan la xiriirin waxuu ku dhashay aan la xiriirin intaba qaliimadooda waan sameeyaa waxaa jiri doonto in cuduradaas mid mar aan wacyigelin aan ka sameyn doono haddii walaala insha allahu tacaala seriskeena soo socda waa mahadsantihiin shukran thank you